dowladda Talyaaniga ayaa 450 ruux oo Soomaali ah oo ogolaan doonta inay soo galaan Sicily. Go'aankaas ayaa la gaaray kadib markii uu Talyaanigu sheegay in Faransiiska, Jarmalka, Malta, Boortaqiiska iyo Isbeen mid walba ogolaaday inuu qaato 50 ruux oo Soomaaligaasi ka mid ah. Malta iyo Talyaaniga ayaa markii hore ku adkaystay inay qasab tahay in dalalka kalena ay ogolaadaan inay doomuhu ku soo xidhaan. Dowladda cusub ee Talyaaniga ayaa adkaysay siyaasadaheeda iyadoo ku dadaalaysa inay xakamayso doomaha ku soo xidhay xeebaheeda. Ilaa iyo hadda dumar iyo carruur oo kaliya ayaa la ogolaaday inay cagaha soo dhigaan dekada Basel iyo Sicily, kuwaasoo guud ahaan isku ah 57 ruux. Dadka Soomaaliga waxaa doonta saarnay in ka soo badbaadiyay laba doon oo ay leedahay hay'adda Frontex ay ilaalisay xadka iyo xeebaha midowga Yurub. Koorintan doontooda wax ka samaysan la soo badbaadin Sabtidii. Malta ayaa diiday baaqiyo loo soo jeediyay oo ahaa inay ogolaato inay ku xirto Villeta, waxaana sheegtay in iyagu uga dhowdahay jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga. Laakiin wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Talyaaniga Matteo Salvini ayaa sheegay in doomaha Frontex ay aadaan dhanka Liibiya ama Malta marka ay badbaadiyaan Soomaaliga. Cabdiraxmaan Ciise, wararka caalamka ee Somali Cable, Burco.